بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قوم أقعد وياي فارس شيخ حسن بداد. أنا وحن ربينا نعاود هالكن باقي كتبيو. أنا قوم كنت أجرا باقي سلطان أبشري عقاش كلي كسو جديين في الرئيس قالوا هيو قبل كان أوضل خاصة تنتج بدل وهيا إن أرنتاسو مدير سوجي تميسي runtii inaan ognahay ilama iyo waxay ka soo bilaabantay xisbiga wadab iyagoo dana gaar uga faa'iideysanaya in arrintaas oo muddo dheer ilaa hadda aanan xal loo helin waxaan leenahay waan cambaaraynaynaa in xuduudaha iyo degmooyinka maamuladooda la bilaqaysto meelo kale lagu daro in salaadiintii iyo cuqaashi ka hadashana waan hambalyeynayna waxaan leenahay hawshiina halka ka haya waxaan kala baaqo diraynaa dadka degmooyinka iyo gobolada u dhashay ee ku jira golayaasha maamulka Somaliland oo leenay runtii shaqadooda way ka gaabiyeen waxa kaloon iyadana rabnaa in carabka ku dhifto degmada Gabiley dhul fara badan oo ka tirsan oo deegaanka reeraha ayay maaragtay muddo dheer iyadana gacanta lagu hayaa oo ka mid tahay caada gesdeer gabiley iyo afweyne waxaan leenahay inta in ka badan uma sii dulqaadan doono dhulkayguna ma sii maqnaan doono in badan baan samirnay oo wanaagga iyana ka talina doonaynay laakiin waxa la soo gaadhay xilligii la xisaabtamayay waa yaasiin faarax muuse waxaan ka mid ahay qurba joogta ka soo jeeda beelaha dega gabiley ilaa saylac kuna nool magaalada London waxaan taageero kal iyo laaba oo aan heer sare ah u dirayaa suldaanka qarniga suldaan Abshir oo sanadkiiba 7 jeer ka hadlay mushkiladaha ka jira deegaanka oo ay ku hayaan xuduudihii Ingiriisku kaga tagay dawladda Somaliland intay wax ku tir lahayd dadka dhibaatada iyo abaaraha iyo faqriga ilaa gumaysigu maalintu tagay ilaa maanta aan dawladnimo dhadhamin oo tuulada ku wada dhashay oo haddana ay dad wasiiriyagoo magac ku raadsanaya kii magaca ku raadsaday magaalooyinka qaybiyay baa magac laan uga baxay kuwa kalena waxay rabaan dadka masaakiinta ah oo dhibaatada ay ragaasatay inay had iyo jeer ay dhibaatada ku sii kordhiyaan suldaanka baaqiisi waxaan leenahay maamulka Somaliland wuxuu ku sheegay inuu nabad ku caanamaalay laakiin wuxuu ka gudbay dariiqi horumarka inay suldaankaas arrimihiisa ay tixgeliyaan ay ku soo celiyaan nabadgelyada iyo harumar meesha ay geeyaan ayna geynin inay laba guri iska soo horjeeda ay guul darro iyo xumaan kala geenin waxaan leenahay suldaan Abshir waan ku garab taaganahay waan dhadhasanay hadalkaaga markastana waan dhageysanaa wuxuuna u badan yahay xaq baadilku kuma taageersan waxaas leeyahay wuxuu ku joogaa xaqa maadaama aad leedahay war dalkani iyo dadkani waa isku mid Ingiriiska halkay ka tagay wada yaaleen wayna wada dhasheen laba tuulo ma kala qaybtami karaan meeshooda ha lagu magaaleeyo waxana ha loogu taro hana laga daayo xumaanta aad ula imanaysid inaguna xoolo u wadin arrintaas suldaan Abshir waxaan leenahay suldaan Abshir ka daalin xaqu dariiq buu leeyahay xaquna waqti buu qaataa laakiin uu gaaraa qofkii xaqa ku dagaalama guushii uu rabay mar labaad waxaan taageero u dirayaa shirkii sharafta lahaa qiimaha lahaa qarniga 22aad ka dhacay dooxada gob ay iskugu yimaadeen beelweynta Samaroon meel kastaba ha degaane iyadoo hormuud ka yahay suldaanka ogaaska Samaroon ha ku noqdo halka suldaanka Samaroon hormuudka ka ah dhaqanka iyo horumarka deegaanka salaadiinta gobolka waxaan taageero weyn siinaynaa wax u fiican baa sameeyeen qodobadii halka ka soo baxay aad bay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda af Soomaaliyeed ku hadashaba ay ugu riyaaqeen maxaa yeelay wax badan bay xambaarsanayeen oo horumar ah oo nabadgelyo ah oo la noolaashada dariska ah oo diin iyo dadnimaba ka buuxdo sidaas darteed waxay isla garatay beeshu qurba joogtu inay nisiyaan waxa la yiraahdaa moral support amba ma taqaanaa ay dhiirigelin si ay guul u gaaraan qodobadii waana nagu taageersanahay dadka dhamaantoodna way taageersan yihiin insha Allah wanaagana wuu raagaa laakiin waxaanu gaari doonaa maalin maalmaha kamida wixii aan ku ballanay inuu buuxsamaan taageerna aan la garab taaganahay ilaahayna garabkiina ha galo
بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت هلقا وحنا اسكوجون مني شر أي اسكوجي مادين جاليادها جاليد كسوتشي ده لو يعدي إلا قبلي إلا هرجس الدولة كان أنت وده حيصدقته جاليد داسي وح هلقا ما أنت إن كود هلا اسكوجي مادين الرما ما نبغى ما نتقدم بيسا سكر ديا الرما زي كم ديهين كوا كعبادية mar walba oo ka hadlo suldaan abshir oo ah deegaanka cabdi geedi iyo ceel sheekh cabdi geedi iyo ceel sheekh 100 sano waxay ka tirsanayd lughaya 100 sano 200 oo sano aan oran karnaa waa intii Soomaalida la yaqaanay maantana inama yar yar oo cusub oo Hargeysa jooga ku qayila ayaa maalin walba waxay yiraahdaan ceel sheekh anaga degna rii kama degana rii qofna kagama noola miidiyaha ayaabay u isticmaalayaan inay dhulku xalaaleeyaan waxa weey beesha Hargeysa degta waa walaalaha iyo weey wadada inaga dhaxayso wada dhalasho wada noolaansho iyo wada lahaanshaha Somaliland laakiin nabadgelyada waxay markasta ka dhisan tahay dhinaca galbeedka beelaha Gadabursi degagebilay ilaa loo yacadeynta u dhaxaysa waxa weey arrintan maanta meeshan isku nimid waxa weey inaan taageero buuxda iyo cod dheer ku taageero suldaanka guud ee beelaha Bahawar Muuse suldaan abshir arrinta labaad ee u nimidna waxa weey in aan taageero buuxda siino shirweynihii beelaha Gadabursi ee ka dhacay dooxada gob ee uu goobjooga ka ahaa ugaaska guud ee beelaha Gadabursi iyo salaadiinta boqolka ah shirkaas oo guul ku dhamaaday laguna taageeray jiritaanka Somaliland midnimada wada lahaanshaha dhulka xuduudaha samaroona lagu soo xadgudbi karin taasi oo cod dheeriyadana ku taageerayno oo ku daba joogno tasaddexaad waxa weeye ammaanka gobolka Awdal ma aha mid cid lagala gorgortamayo dalka waxa ka talisay dawladdu waa Somaliland Gadabursiga waxa uu taliya maanta u sareeyay Cabdiraxmaan Siilici suldaanna waxa ugaas baa u sareeya oo nuleenahay intaasi halkay maraan baynu maraynaa suldaanka guud ee beeraha maxal casana horu carabka ugu dhiftay isagoo leh siyaasad markay noqotana Siilici kala soo xidhiidha dhaqan markay noqotana ya salaadiinta dhaqanka waxa weey kuwaasna aad baan u taageersanahay waxa weey Allahumma salli ala Muhammad Gadabursi waa mid gebile ilaa iyo loo yacade ka oo barre ilaa diridhaba dusheeda degan Samaro waa mid weey Samaro waa dad nabad jecel deegaankoogana ma filayo inay si dhayala dagaal looga dhici karo ama ay maxaan ku waxay 100 sano soo dhisayeen jaamacadaha iyo aqoonta ay leeyihiin inay si fudud ku burburinayaan wax kasta oo maaragtay ka dhimana sidii ku helayaan way yaqaanaan Ilaahay baa aqoonsiyay beelaha jaarka nahay ee walaalaha nahay labada cirif naga xigana waxa weey waxaan ka codsanaynaa inay si nabad iyo ammaan ah ku wada noolaadaan oo gujada joojiyaan iyo dhul boobka meesha dhul la boobaya ma jiro iyo wax la birilaqaysanaya waxa weey loo yacday iyo gebile inta u dhaxaysa 1960 Ingiriiska ka tagay wadanka in dadkii deganaan baa degan laakiin markaan walaaltinimo iyo wada dhalashadeena tixgeliyay aad ku soo durugto haddana hadda dhow maran miidiyaha kolba ay soo marayso taasi waxay keenaysaa dhow isku dhac beelad iyo dhimasho iyo dagaal waana ka baxay saddexda arrimood baan u nimidnay maanta halkan walaad mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay nasiib wanaaga in ka soo qayb galo shir halkan lagu cambaareynayay duulimaadkii lagu soo qaaday gobolka lughaya khaasatan cabdigeedi waxaan u malaynayay safarkii madaxweynuhu maray ee la oran jiray hilaac inay arrimahaas ku dhammaadeen baan moodano dib dambayse loo soo hadal qaadi karin taas oo markii la isku qabsaday ceel sheekh ay madaxweynuhu halkaa ku dhameeyey anuu yidhi ceel sheekh waxaa xukunta lughaya waxa la yaab la markaa inta laga gudbo muxuu ahaayeen ceel sheekh in la tago dib loo noqdo xaggii lughaya loo dhawaado la yidhaahdo dee maanta halkan aan ka fudinanaa oon ka sareynaysaa yacni ID-ga ama dadkii laga qaadaya maxaa bahaaladii taasi wax ma gardarro aan meelna loogu soo gaban la doonaya dadka walaalaada waddanka wada dega meesha wada dega in la iska hor keeno dee qofka waxaa wadaana fidna mooyaane wax ugu daadegayaan ma jiro marka waxaan leeyahay arrintaas way dhammaatay
waxaan dhaweeyey madaxweynaha ilaa khayra siiye muxuu ahaa axmed maxamed siinaayo siduu dhammeeyna ha lagu daayo dadkana fidnada ha laga daayo meeshii dadkan wasiir hadduu yahay iyo hadduu cid kale yahayba wuxuu madaxu yahay ma aha inuu yani fidno sameeyo waxa weya inuu dadka dejiyo dadka walaalaha isku keeno yaa lago nina looma dooro in beeshiisoo qura ka shaqeeyo ma dadka iska hor keeno marka waxaa leeyahay dadka waxaan wadaa ha ka tanaasulo dadka walaaladana madax ayaana isku gelin waxaanan leeyahay ilaahay hayna garansiiyo taa iyada ah waanad mahadsanta bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la idhahaa maxamed barre beerjiif waxaan maanta halkan u nimidnay inaan kaga hadalno shir jaraa'id oon ku sheegno arrimo kasoo cusboonaaday waddankan deganayn marka ugu horeysa waxaan ku taageeraynaa suldaan abshir arrintii oo maalintii dhaweyd kaga hadlay in ay dad aanan shaqo ku lahayn dhulkii ay soo doonteen oy doonayaan inay ku qaataan maaragtay magac dowladeed aanan arrintaan anagu raalli ka ahayn ana ay tahay wax aan loo dul qaadan karin marka waxaan u sheegaynaa dadka dowladda magaceeda sheeganaya ee doonaya inay dhul ku qaataan magac dowladeed inaan anagu haddaan nahay dadkii dhulkaa deganaa aanan raalli ka ahayn aanan aqbali doonina wax kastoo ay sameeyaan meeshan dadkii deganaa unbaa deganaa waxaan kale oon u sheegayaa maaragtay suldaanka in aan ku taageersannahay oon ku garab joogno oon hiil iyo hoob waxaad u baahan tahayba aan kula garab taagannahay midda kale aan ku daray waxa weeyaan arrin kale oo kasoo cusboonaatay gobolkii awdal taa lafteeda waxaan u sheegayaa dadka ku haya nabadgelyo darrada in aanan loo dul qaadan karin kii doonaya inuu nabadgelyo darro sameeyo dee halkii looga baahnaa inuu tago ninka kasoo horjeeda maamulka somalilan waa inuu tago hargeysa iyo dhulka ay degan yihiin laakiin maaha inuu ka hadlo carruurta iyo shacabka iyo dumarkaba habeenkii u diiday inay seexdaan taana waxaan leenahay arrintaana maaha arrin loo adkeysanayo waana jawaab adag baan ka siinaynaa insha allah hadii la helo asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عاو halkan waxaan kaga soo qayb galnay shir jaraa'id oo kaga hadlayno amba aan ku taageerayno suldaan abshir oo ka hadlay iyo odayaashii maaragtay la joogay aan ku taageerayno go-aankii uu ka soo saaray amba codkii uu ka soo saaray dhibaatooyinka ka taagan bariga lughaya haddaan nahay markaasi ka deegaan ahaan dadkii kasoo jeeday degmadaasi waxaan si cad uga soo horjeednaa cod gaaban iyo cod dheer baan ku taageeraynaa suldaaga degmooyinkaasi waxa ay dadka walaalihii wada degan yihiin waa degmooyin ka tirsan lughaya boqolkii sare u dambeysay iyo 200 sare u dambeysayba mana aqbali doono dadka ay keeneen damaca cusub qaas ahaan deegaanada hargeysa ka soo jeeda ma taageersan waa aad baan uga soo horjeednaa waxaana ku baartay aan codsanaynaa dadka walaalihii amba gacalka amba ood wanaagtihi inay ku wada noolaadaan si nabada siyaasiyiinta hargeysa ku barjeynayaan ay ka daayaan maaragtay maxay fidnada ay dhex dhigayaan because waxaa dhacay waxa weeyaan dadkani waxay u baahan yihiin horumar uma baahna intoo hargeysa lagu barjeeyo in fidna lasoo maaragtay fidna lagu abuuro dhexdooda beelahaasi waxa uga beelo gacala deegaana qaato haddii dad ay dhul dadbanayaan oo dhul ay raadsanayaan deegaanadaasi ka dad ka soo jeeda haddeen nahay annaga naga maqan yahay dhul waxaanan ku doorsanay weli nabadaan annagoo jecel waxaygana ku raadsanna nabad deegaanada ay ka mid yihiin caadda jirida geesdheere iyo dhul badan oo kale lamida dadkii way ka maqan yihiin wayna ka guureen dhibaatooyin iyo fidnadii dagaalada haddana in lanoogu daro markaasi dhibaatooyin kale oo cusub iyo damac dhuleed ma ogolaanayno sababtoo ah waxa weeyaan haddaan annagu intaydii hore raadsanno maanta ma yimaadeen damac labaad laakiin waxaan leenahay dadka aan walaalaha nahay ood wadaagta aan nahay gacalka aan nahay xigaalka aan nahay waxaan leenahay inaan ku wada noolaano nabadgelyo horumarna aan raadsanno sababta waxa weeyaan intaa waxaan ahayn waxba laguma gaari karo hadday fidna dhacdo ninba u dan maaha waxaan kaloo taageeraynaa shirweynihii sabaroon ee gob waxaan u mahadnaqaynaa ugaaska iyo dadkii kasoo qayb galay shirkaas waxaa kaloo qodobka saddexaad aan ka hadlayno waxa weeya nabadgelyada gobolka awdal haddii anagu aan ka hadalno waxaan taageersannahay sidii maaragtay isku duubnida iyo wixii maqan ee ka maqan dadka gobolka awdal ay tabanayaan in lagu raadsado sidii nabada sidii horeba aan u taageernay waxaan leenahay in lagu raadsado nabadgelyadana la ilaaliyo horumarkana maaragtay hore loo wado aan dib loo noqon
kuwa walaalaha ee maqan maaragtay u baxay jabhadda iyagana waxaan ku maaragtay ka codsanaynaa inay maqlaan baaqa iyo maaragtay codadka ka soo baxaya gobolka Awdal iyo dad kale walaalahana ee Soomaaliland ku nool oo ay u soo noqdaan nabadgelyada iyo midnimada sabaroon kuna taageeraan intii uu maaragtay majority-gu ay ka hadleen ee goortida iyo maaragtay waxgaradka iyo aqoonyahanku ay ka hadleen shirki gob ka soo baxay inay dib u akhristaan una soo noqdaan wacyiga nabadgelyada iyo horumarka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.